show dhigo show as dhigoya laakiin anaga ma qalbi jabeyno insha Allah ma qalbi jabeyno tan waaba ku sii xoogeysanayna murqayna ku dhismay liyaqa ibn ta liyaqa ma qalbi jabeyno waa soconayna insha Allah waxaa soo dirdiray dad oo ayka aan u ogoleen dhalinyartood sidaan oo kale inay u dhaqmaan laakiin adiga qiiq gadaashiis mu gama kartaa qiiq mu ku astura mu qoreeya qiiq waxaa jiro dad oo runtii ku mashquulsan inay carqaladeeyaan doorashooyinka waa aragteen mar walbo warbaahinta ay waxay la hor istaagan yihiin markasta warbaahinta taagan yihiin warbaahinta hor taagan yihiin waxaynu ka hadlayaan wax oo macno badan aan sameynayn waana la dhacay waana la boobay kuraasaa naga maqan kuraasta hala furo yani nin oo kursi u ka maqan yahay oo kursigiisu waa cayiman yahay kursigaas ana iga maqan haddana compromise sameeyay ka waran yani wuxuu ku leeyahay waxaan ogolahay kursigayga in la daafuro kursigayga in la daafuro macnaha waxa waaye in 10 beel oo banaadir loo keeno ya oo markaas kursigiisa ay kula tartamaan yani ninkaas Janis intel ay uu haystaa oo kursigiisa ku socoshin kara ninkaas ma kursi ka maqan nin kursi ka maqan ma saas dhaayo nin kursi ka maqan ma dadka invite gareehay kaaliye kursiga ugu la tartama kursiga maqan waaba la kasibe doorashadu waa daafurtay maxaa waa daafurtay kursi kastana wuxuu u daafuran yahay jufooyinka hoose ee beesha kursiga ku haysta oo qaybsiga beelada 4.5 beesha qalmashooy kursigan wuxuu ka dhaxeeyaa xaaji cabdi xaaji ibraahim iyo baaqasho ka dhaxeeyaa intaas aanu tartamaya intaasina uu daafurantay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guddiga doorashooyinka wax kale kama hadlin daafurnaantaas maane daafurnaan kale ma sheegin ayka laakiin adiga hadii uu jiro kursi ku cayiman oo adiga ka maqan si aad u dhigi karta kursigaas hal soo dhaxdhiga banaadiri halo daafur si aad u dhigi kartaa kursi adiga aad leedahay meesha meelo kaas waa macnihiis kursigaaga hala daafur ma dhiilan sababtoo ah dhaxdaas ka baxabe haddii aad hadda 10 qabiil oo banaadir lagu keeno kursiga dhaxdaas ka baxa meeqa Janis ah haysata kursigaas adiga ku soo laaban lahayd marka waxaas dhan sheekooyinkaas dhan waxa way waxay rabaan sandulli in doorashooyinka loo qayb geliyo wax kale ma si oo sandulli in doorashooyinka loo qayb geliyo laakiin taas waxay sababaysaa carqaladay sababaysaa waxay sababaysaa doorashooyinka waxay sababaysaa carqaladay u sababaysaa carqaladaasna waa wax hadda laga cabanayo yani doorashooyinka maxay u socon laayihiin dib u dhacan isdaba jooga oo doorashooyinka ay ka socon laadahay maxaa waaye meeqa jeer appointment la sameeyay doorashada waqtigaas bilaaway waqtigaas ku dhamaanay waa dhiciis waqtigaas bilaawanaysa waqtigaas dhamaanaysa waa dhiciis waqtigaas bilaawanaysa waqtigaas dhamaanaysa waa dhiciis carqalada u sabab carqalada oo sabab laakiin aniga waxaan dhihi lahay guddiga amniga doorashooyinka
arrimahaas waxaa ka qabtaan. Habka ugu sahlanna waxa waaye oo arrimahaas ay ugu qabanayaan inaan goobaha iyo xarumaha codbixinta aan loo ogolaanin inay yimaadiin aan ka ahayn beelaha kuraasta ku haysta awood qaybsiga beeleed ee 4.5. shuruudaas ciddii aan soo buuxin karin inaan loo ogolaanin beelahaas goobahaas inay iska soo xaadiriyaan. sida ugu dhow ugu sahlan kaas way. doorashadan waxaa loo qabanaa beelaha kuraasta ku astaysan. ciddii aan ayka ka mid ahayn oo goobaha loo ogolaado inay iska soo xaadiriso waa marka ay doorashooyinka ay carqaladeysmayaan oona doorasho ay dhaciin. markaas way. dadkaas waxaa loo yaqaanaa qaswadayaal loo yaqaanaa. qaswadayaashan waxa waaye dadka diidan oo kasoo horjeedo in la dhaqan geliyo habraaca doorashooyinka iyo heshiisyadii awood qaybsiga beeleed. in doorashooyinka lagu hirgeliyo dadka diidan waay, dadka kasoo horjeedo waay. ayagoo aan soo buuxin karin shuruudaha ay uga qaybgelin lahayn doorashooyin ama shuruudaha looga qaybgalo doorashooyin ayagoo aan soo buuxin karin ay waxay rabaan inay iska soo xaadiriyaan xarumaha iyo goobaha codbixinta. ka horan baad arrintaas. haddii sidaas ay dhacdo guddiga xulista ergooyinka beel kasto oo doorasho loo qabanayo saddex oo qayb ay u baahan tahay. waxay u baahan tahay guddiga xulista ergooyinka oo odayaasha qayb ka mid ah oo bulshada reedka ku jirto guddiga xulista ergooyinka. guddiga xulista ergooyinka codbixiyaasha oo ergooyinka iyo murashaxiinta. beel kasta oo doorasho loo qabanayo saddexdaas ay soo xaadirinayaan. saddexdaas qayb ay soo xaadirinayaan. haddii laga dhex helo dad aan shuruudaha soo buuxin karin doorashadaas ma qabsoomayso. doorashooyinka banaadiriga haddii taas ay ka dhacdane waxaa ka mas-uul guddiga doorashooyinka ee sid banaadiri ayakaa ka mas-uule. aniga intaasaan dhihi lahaa. billahi tawfiiq. wassalaamu calaykum.